madaxda kala gedisan ugu horeeyay wasiirka amniga iyo duqa magaalada Muqdisho iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliyeed waxay maanta halkaan kaga soo qayb galeen bandhig ay soo bandhigayeen ciidamo dhawaan ka soo noqday tababar ay ku soo qaateen dalkan walaalahana ee Djibouti kuwaas oo loo soo tababaray ka hortaga rabshadaha maadaama aynu u gon leenahay in ciidamadeena xirfadooda kor loo qaado maantana ay halkaan ku soo bandhigeen cashiradii iyo waxyaabihii ay ka soo faa'iideen tababarkii ay ku soo qaateen dalkan walaalahana ee Djibouti sidoo kale waxa ay madaxda ciidamada ay ku baraarujinayeen sidii ay mar walba isdhaxgal ay ula sameyn lahaayeen qeybaha kala gedisan ee bulshada maadaama aynu muddooyinka u dambeeyay aan ka shaqeynaynay sidii la isku xiri lahaa laamaha kala gedisan ee amniga iyo shacabka halkaasna uu ugu dhalan lahaa wada shaqeyn buuxda oo dhaxmarta ciidamada iyo shacabka maadaama aanu soo tijaabinay in guulo fara badan laga gaaray wada shaqeynadii dhaxmartay laamaha kala gedisan ee amniga iyo shacabka inteeda kala gedisanba runtii waxaanu mahad gaar u celinaynaa dawladda Djibouti oo mar walba naga caawinta in ay tababaro soo siiyaan qeybaha kala gedisan ee ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaanu rajaynaynaa inaanu annagana wax ka baranno kana faa'iidno tababaradaasi aan ka soo qaadano dalka Djibouti maasanadii